kani waa kitaabkii alle ee uu akhrinayay allah u naxariistee nabadoon ibraahim cariif oo shalay galab masjid ku yaala xaafadda jungal ay ku dhex toogteen argagixisada al-shabaab ee ayaanka daran. waa kitaabkii alle iyo aayadihii qur-aanka oo ay rasaas la dhaceen al-shabaab. laba ka mid a kuwa ugu ayaanka daran khalqiga eebbe ayaa gudaha masjidka ugu soo galay nabadoon cariif oo maalmihii tagay masjidka ugu jiray ictikaaf isagoo maalin kasta akhrin jiray rubuc ka mid a qur-aanka kariimka ah. mid ka mid ah ayaa isku dayey inuu toogto marxuumka, laakiin waxa u dhici weysay bastooladii u watay. kii labaad ayaa kabihiisii la soo galay masjidka kadibna toogtay nabadoon ibraahim cariif, isagoo sidoo kalena dhaawacay nin oday ah oo isku dayey in uu la hadlo oo uu ka waaniyo falka xun ee ay ku kacayaan. halkan waxaa kooxda ayaanka daran ee al-shabaab ay ku geysatay dembiyo aan kala culays yarayn. waa mide waxa ay dishay ruux muslim ah, sooman, waayeel ah, kana mid ah birimageydada. waxay dishay oo ruuxdiisa goysay isaga oo ku jira beydkii ilaahay oo akhrinaya kitaabka alleh. waa saddexe waxa ay toogatay oo rasaas ku dhaawacday kitaabkii ilaahay. waxay kooxdan habowsani falkan ku kacday iyadoo ay tahay bisha barakaysan ee ramadaan. intaas oo dhanna waxaa ka sii daran inay ku faantay oo aaminsan tahay in xumaanta intaas la eg alle loogu dhowaanayo. maalinba maalinta ka dambaysa al-shabaab waxa ay ku kacayaan wax kasta oo islaam ku xarimay, waxayna weerar ku yihiin wax kasta oo xitaa uu ku jiro kitaabka ilaahay.